taliska ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa galay heegan buuxa waxaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland guud ahaantoodba ay ka bilaabeen howlgallo ay ku soo qabqabanayaan dhalinyarada fadqalalada ka wada guud ahaanba magaalooyinka tuugada iyo dadka ka ganacsada mukhaadaraadka. galinkii dambe ee maanta ayaa saraakiisha ciidamada booliiska ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa waxay digniino adag u direen dhalinyarada, waalidiinta, wadayaasha baabuurta iyo dadyaga ku foogan ganacsiga mukhaadaraadka. taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland Sareeya Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo halkaasi ka hadlay ayaa yiri waxa jira kooxo dhalinyaro ah oo caadaystay inay waxyeeleeyaan nabadgelyada iyagoo koox isu dilaya ama baaranaya dadka ama maxaan ku yiraahdaa waxyeeleynayo nabarro u geysanaya ama gaadiidka xadaya. dhalinyaradaas waxa weeye ciidanka booliisku isagoo mar walba sharciga marinaya wadada sharcigaana u maraya dhalinyaradaas waxa faahfaahin doona tiradooda iyo waxyaalaha kale taliyaxeenka ciidanka booliiska. ciidanka booliisku wuxuu galayaa howlgalaal ballaaran oo ku wajahan kooxaha dhalinyarada ah hadday tahay caasimadda, hadday tahay gobolada dalka meelahay ka jiraan, tuugada, mukhaadaraadka, wax kasta oo nabadgelyada u dhimaya. waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa una ballan qaadana in dhalinyaradaas oo bahaloobay waxa lagu tilmaami karaa inay bahaloobeen, inay yar oo soo hooyeen oo maalin iyo habeen inuu wax boobo, inuu wax dhaco, inuu wax eriyado diyaar ah. ciidanka booliisku waajibkooda qaran ayay ka gudinayaan. taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliland Sareeya Guud Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa yiri ciidanku waxay bilaabeen ay ku jiraan howlgal aan kala go' lahayn. howlgalkaas oo laga nadiifinayo caasimadda, foodeerayaasha iyo kuwa qaswadayaasha ee magaalada dhex wareegsanaya iyo tuugtaba. howlgalkaas wuxuu noqon doonaa mid aan kala go' lahayn. ciidanka booliisku waxay howlgallada ku soo qabteen ilaa iyo hadda tira aan ka yarayn 100 foodeerayaal oo 67 ka mid ah la xukumay, 12 magafayaasha ah iyo ilaa 30 xukum sugo ah oo kuwa dhalinyarada ah. howlgalkaasi saaka xalay buu bilaabmay, saaka shantiina waa la galay ilaa haddana uu socdaa, waana soconayaa, waa mid aan kala go' lahayn. sidoo kale taliyaha ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Gaashaanle Sare Faysal Xiis ayaa isna digniin adag u diray darawalada iyo mulkiilayaasha kala duwan ee gaadiidka. waxaan u sheegaynaa kuwa baabuurta kareysta ee carruurta yar ka kareynaya inta ka kareeyaan iyagoo aan liisa weydiin, iyagoo aan buug weydiin ka kareynaya, hadhowna khasaare dhimasho iyo dhaawac wax walba geysanaya, hadhow soo dacwoonaya, hadhow ma soo dacwoon karaan, iyagaa ka mas-uula halkaa waxay ka yimaadaan. waxaa kaloo ka mid ah anshaxumada gaadiidku ay samaynayaan, wadooyinkii baa la dhiganaya baarkinadii, kuwii baqaarada haystay baa hortooda dhiganaya. sharci maaha, waa khalad wey. waxa weeye waa inaanay wadooyinka dhexdooda dhigan, waa inay meel baarkada lagu sameeyo, waa inay dhigtaan, waa inaanay wadada xoog ku soconin, waa inay dadka ay wadaan ay rakaabka ilaaliyaan. 100 shil buu taliyo ka hadlay, nafta bini'aadamka waa qaali, laakiin waxaad moodaa in aanay dadkan baabuurta wada nafta la qaalahayn, inay mas-uul ka yihiin nafta ummadda, maalkooda iyo hantidooda. Najcadan Cunaaye, Hoon Kaybar TV, Hargeysa.